kamida jaaliyada Soomaalida ayaa la sheegayaa inay degan yihiin gobolada sida weyn loogu hardamayo doorashadan codkoodana laga yaabo inuu saameyn ku yeesho cidda ay tahay inay guusha raacdo. Jibriil Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio ayaa wariyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xuseen uga warramay gobolka Ohio oo ah meesha musharaxiinta awoodda weyn ay saarayaan iyo sida Soomaalida arrintan ay u khuseynayso. intii ay bilaabatay doorashadan iyo ololaheeda labada musharax ee u tartamaysa madaxweynaha dalka Mareykanka Mitt Romney iyo Barack Obama labaduba waxay yimaadeen gobolkan Ohio marar fara badan. madaxweyne Obama wuxuu yimid 30 goor, Mitt Romney wuxuu yimid markii 40aad. dadaalkaas faraha badan waxa loo gelinayo gobolkan waxa weeyaan waa gobolka go'aamin doona doorashada dalkan Mareykanka oo cidii ay raacdo ayaa ku guuleysan doonta. gobolkan waxaa ku sugan dad Soomaaliya oo gaaraya ilaa 18,000 oo qof oo codeeyayaal ah muwaadiniin Mareykan ah. si aad u fara badan ayayna u codeynayaan. intooda badanna waxay hadda u codeynayaan xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweynaha Obama sababtoo ah xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne Obama ayaa si aad ah ugu dhex jiray oo uga dhex ololeynayay Soomaalida degan gobolka Ohio. Soomaalida oo codeynta ay u codeynayaan Obama mooyaane muxuu ku yeelatay oo saameynaa doorashada maxay ku yeelatay? dhab ahaantii Soomaalidu waxay isu arkaan in ay leeyihiin awood ay wax ku go'aamiyaan. gobolka Ohio wuxuu u kala qaybsan yahay 3 qaybood. qaybtaas waqooyigu waa dad u badan dimuqraadi, dhanka koonfurta iyo barigu waxay u badan yihiin dad ah jamhuuri. halkan bartamaha ayaa loo kala qaybsan yahay kala bar iyo kala bar. sidaas darteed dadka Soomaalidu meeshay raacaan inay guuleysanayso ay Soomaalidu u arkaan si xawli ah ayayna u ololeynayaan. tan kale madaxweyne Obama wuxuu shaqaaleeyay dad badan oo Soomaaliya oo ama darawallo oo baadgaadiidka dadka ku qaada ama goobaha doorashada ka shaqeeya oo dadka sida loo codeeyo iyo afka qofkii aan aqoonin u sahla inuu fahmo waxa lagu codeynayo iyo waxa la kala dooranayo. xisbiga jamhuuriga ama xisbiga Mitt Romney sidaas oo kale ma sameeynin miya? maya ma sameeynin xisbiga jamhuurigu dadaal caynkaay oo kala ah. runtii waxayba sameeyeen qoraal ay leeyihiin Soomaali aan sharciyeysnayn ayaa Ohio ka codeynaysa oo musuqmaasuqaysa doorashada gobolka Ohio si madaxweyne Obama uu soo noqdo. arrintaas ayada ah Soomaalidu way ka gilgilatay. qoraalada laga sameeyay aniga lafteeda qoraal baan ka sameeyay. waxayna dhawaan sameeyeen xiriiro ay leeyihiin san Soomaalida ula hadalnaa iyo si ula xiriirnaa iyo halka loo maraa. marka awal ma jirin wax weyn oo dhexgala oo ay Soomaalida ku sameeyaan xisbiga jamhuurigu. iminkan kadib waxay bilaabi doonaan mooyaane. jawiga guud ee gobolka ama meeshaasi aad joogto sidee buu yahay? guud ahaan dadku way kacsan yihiin oo waxay danaynayaan natiijada doorashada oo soo bixi doonta saacadaha soo socda. waxay aad u danaynayaan in uu guuleysto qofkii ay rabaan ama ay taageersan yihiin oo madaxweyne Obama ama Mitt Romney ah. waxay aad ugu jeedaan idaacadaha iyo goobaha maaragtay lagu daawado doorashooyinka inay tagaan oo marka diyaar garow fara badan baa carrada ka socda. kaasi waxa uu ahaa Jibriil Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio oo u warramayay wariyaha BBC-da halkaad naga dhageysanaysaana waa BBC London.